asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga dhammaantiin kusoo dhawaada kukiimi socod dhammaantiga cusubtiina kusoo dhawaada familka subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo gelay si dhaqsi kusoo gaara soo asxaabteyda qaaliga maanta waxaan sameynaya rooti aad iyo aad u jilicsan oo aad iyo aad u macaan badan oo guriga aad ka sameysan kartid oo weliba aad iyo aad u fudud waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaan ka faa'iidi doontiin maanta recipe-gan oo rootiga sidaan u sameynaya guriga asxaabta maantiga cusub kusoo dhawaada channelka kukiimi socod channel labaad ayaan leeyahay oo qurxinta daawil arkin magaciisa waa kay kusoo dhawo linkiisa waxaan soo gelinaa videogan haddaan soo gelinaa comment dhexdeeda linkiga pin aan saaraya linkaas markaa raacid waxay ku geenaa channelkayga oo qurxinta sidaas u soo booq kartaa subscribe yaa saar kartaa marka dhammaantiin ugu cusubtid oo weli arkin channelkayga oo qurxinta kusoo dhawo waxyaabo badan aan soo geliya dhammaantiin ka faa'iidi doontiin marka dhexdiin sidaan u sameysanayn maanta rootigeena sidaas la socda dhammaantiin daawasho waan asxaabta teeda qaaliga marka hore waxaan u baahanaa caano hal koob oo caano ayaan u baahanaa baaquligaas ayaan ku shubanayaa koobkii adiga rabtid isticmaali kartaa muhiimka waxa waaye koobka caanaha aad u isticmaalaysid burkana kaasina u isticmaashid ayuu noqonayaa kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaado oo liiwato ama qamiir sida u taqaantiin kaas ayaad u baahan tahay marka intaas waxaan markaan isku daro kadibna waxaan ku darsanayaa sukartan hal qaadi bar qiyaastiisa ayaan ku darayaa qaadadan isticmaalaa qaadada weynka cuntada lagu cuno waa hal qaadi bar oo sukar kadibna hal qaadi qiyaastiisa cusbo ayaan ku daray intaas waxaan markaan isku daro wax yar isku qasayaa si sukarta wax yar isu dhilaalo hadda waxaan ku darsanayaa asxaabta saliid ayaan ku darayaa hal qaadi qiyaastiisa oo saliid ayaad u baahan tahay saliid badan ha ku daray rootiga just hal qaadi ayaa loo baahan yahay saliida markaan ku daro kadibna wax yariis aan isku qasaya waxyaabo dhanaan isku darday and then markaas seetini waxaan ku darayaa burkan asxaabta waxaan isticmaalaya koobkii caanahan isticmaalay 3 koob oo bur qiyaastiis ayaan soo cabiray ayaan meesha ku darsanaya marka inta rooti maantaan sameynaya 3 koob oo bur waay qiyaastaas ayaan ka sameynaya marka burkaas markaan ku shubo kadibna waxaan sameynaya si fiican aan u qasaya cajiinka si fiican oo cajiin si rootiga dhan si fiican isku dhaxgalaan rooti oo jileec oo soft inuu ku noqdo marka qasitaanka ayuu ku xiran yahay hadaa si fiican u qasit rootigaaga jileec qurux badan ay ku noqonaya soo marka waan si cajimaya markaan soo cajima kadibna markaas idin tusinaya sida kale aan u sameysanayno rootigeena soo asxaabteyda qaaliga marka rootigeena diyaar waa si fiican aan u cajimay hadda waxaan sameynaa shukmaan ayaan ku daboolay rootiga wax saliid ah korkiisa marin shukmaanka markaan ku daboolanay ilaa 30 daqiiqo ama 35 daqiiqo ayaan meel dhigayaa 35 daqiiqo kadibna markuu soo fuurane sidaas ayuu noqonayaa diyaar waa rootigeena cajiinkiisa marka rootiga sidaan u sameynaa iyo sidaan u fiirinaa idin tusinaya hadda waxaan sameynaa asxaabta rootiga waan googoonayaa qiyaas yar yar oo qurux badan kuuskuus ayaan ka dhigayaa kuuska zaid u yareynin zaidna u weyneynin dhexdhexaad inaa ka dhigtid ayaa la rabaa rootiga kuuskiisi marka sidaas ayaan ugu kuusaya rootiga dhan kadibna waa idin tusi doonaa marka asxaabteyda qaaliga kulli waan soo kuus rootiga waa aragteen qiyaas qurux badan ayaan ka dhigay hadda waxaan sameynaa meeshaan ku firinayo wax yar saliid ayaan u marinayaa geedkad ku firinaysid dan alwaaxa saliid fiican iska mari iyo farta aad ku firinaysidna saliid iska mari si hadhow rootiga marka aad firinaysid ay ku dhigdhigin kadibna hadda waan sii firinayaa markaa firinaysidna si fiican inaa u firisid ayaa la rabaa rootiga dhan inaa dhexdiis ewer noqdo marka waan sii firinaa sidaas marka hore dheerkaas ayaan u firinayaa soo marka asxaabta sidaas ayaad u firinaysaa mar walba si fiican u firi markaa firinaysid rootiga aad rabtid dhexdiisa rooti jileec badan oo qurux ku noqdo oo dhexdiisi wax bur iyo cajiin fadhisanaynin marka sidaan inaa u firisid ayuu noqonayaa dheer ka dhig maanta dhan firi ilaa burka dhan dhexda eber ka noqdo kadibna sidaas ayaad u wareejinaysaa waa aragteen isku keen si fiican oo xir si hadhow markaa dubaysid ay kala furmin dhirirkana intaa firi kartid firi maanta dhan qayb xir haddana qaybtii kale sii firi sidaas ayaad ku wadaysaa si fiican oo firi cajiinka dhan dhexda eber inuu noqdo ayaa la rabaa ilaa meeshaas sida qafiif markuu sidaas noqdo aad isku xiraysaa markaasna rootigaaga waxayuu ku noqonaa rooti maasha allah dhexdiisa jileec soo asxaabteyda qaaliga marka xabadii ugu dambeysana waan soo firiyo waan soo diyaari waa aragteen sidaas ayuu kusoo baxay kulli rootiga dhan marka saxankaas ayaan ku safay kulli hadhow waxaan sameynayaa waan sii qamiirinayaa haddana 15 daqiiqo kale ayaan sii qamiirinayaa markuu soo qamiiro kadibna aan idin tusinayaa waxyaabaha kale aan ka sameyn doono rootiga
marka asxaabta hadda waxaa laga joogaa 15 daqiiqo kadib waa rootigeena haddana waa noo soo khamiiray sidaas ayaa la rootiga inuu soo khamiiro hadda waxaan sameynaa marka rootiga sidaas soo khamiiro wax yar soo caano ayaan korka marinayaa hadhow markaad dubtid rootiga dhan hal kalar qurux badan ayuu ku noqonayaa marka caano ayaad iska marinaysaa haddaad rabtid caanihi ukun ayaa mari kartaa laakiin aniga ukun ma rabi soo jes caano ayaa marinaya laakiin adiga haddaad jeceshid ukun inaad marsid ukun waa marsan kartaa caano ayaad isku qasaysaa haddaa caano keligiis rabtidna caano ayaad marinaysaa marka aniga caanahaas keligeed ayaa marinaya kadibna waxaan sameynaa caanaha markaa mariyo foornaha ayaan daaraya foornahan asxaabta waxaa loo baahan intaa rootiga aad gelinin ka hor ayaad shidaysaa rootiga markaa gelisid already foornaha inuu kuleel ahaado ayaa la rabaa marka foornaha kuleelkeeda waxaan ka dhigay 220 markuu yahay kuleelka kor iyo hoos ayuu daaran yahay kadibna rootiga markaa gelisid 30 daqiiqo ayuu kaa qaadanaya inuu ku dubmo kadibna rootigaaga diyaar ayuu kuu noqonaa laakiin rootiga asigoo foornaha qaboob ah gelinin oo hadda markaad daarsid foornaha rootiga hore ka gelinin hadhow rootigaasi dhexdiisa dhan cajiin ayuu fadhisanayaa soo foornaha markuu ku leeyahay wax yariis markaasi aad gelinaysaa rootiga kadibna waqti markaa qaadanaysa isla markaasi ayuu ku dubmayaa soo markaad waxaan sameynaa caanaha dhan kuli gees walba ayaan ka marinaa rootiga haddaad rabtid hal kalar qurux badan inuu ku noqdo caanaha gees walba ka mari kadibna markaan mariyo hadda waxaan sameynaa foornaha ayaan gelinayaa markaan soo dubo kadibna waa idin tusinaa asxaabta soo asxaabteeda qaaliga marka hadda foornaha waan ka soo saaray rootiga waan soo dubo aragteen hal kalar qurux badan ayaan ka dhigay hadda korkiis waxaan marinaa wax yar oo subag ayaan marinaa subaga rootiga oo la marsado waaye marka subagaasiid ayaa marinaya wax yariis just meel dheer ayaa loo baahan yahay wax badan marinin just inuu rootiga kalarkiisa si qurxaado kadibna asxaabta rootigeena sidaas ayuu diyaar ku noqday I hope inshallah dhamaantiin inaad ka faa'iideen recipe-gan rootiga maanta idin sameeyay I hope adinkan inaad baroobo kartiin maraqa ama waxay rabtid aad u sameysan kartaa rootiga aad ku cuni kartaa dhexdiisana jillic maasha Allah soft ayuu noqday waa idin tusinaya dhexdiisa sidoo noqonaa rootiga iyo kadibna sidoo u jilacsan yahay idin tusinaya marka aad nidaamka raacdid rooti jillic qurux badan ayaa kaaga soo baxaya inta gabdho mar walba asxaabta ii soo qoraan oo ay dhahay rootiga waa naga hadlaabay marka sidaan barooway rootiga nidaamkiisa raac kadibna waad arkaysaa rootigaaga sidoo noqonayo rooti jilac badan oo qurux badan ayaa kaaga soo baxaya soo marka asxaabta waxaan rajaynayaa videogan dhamaantiin inaad ka faa'iideen videogan hadaa ka faa'iideen videogan like si share gareysay walaalaaga asxaabta aad arkaan ay ka faa'iidaan hadaa maanta nagu cusubtidna kusoo dhawaa family subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo gelisay dhaqsay kusoo gaaran soo marka asxaabta aragtay rootiga sidoo u jilacsan yahay labada dhinacne maasha Allah kalar qurux badan ayuu noqday asxaabteeda qaaliga videogan hadaa ka faa'iideen maanta rootiga sidaan sameey videogan like si share gareysay walaalaaga asxaabta aad arkaan ay ka faa'iidaan hadaa maanta nagu cusubtidna kusoo dhawaa subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo gelisay dhaqsay kusoo gaaran soo asxaabteeda qaaliga videogan rootiga marka intaas ayuu ahay until then inshallah next video is maqli doona with new recipe dhamaantiin khayr badan ay idin dhaaf adduunka meel walba ka joogtaan and as always ducadigu xasuusta